السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إذا لهانت من ملك ستات جوبتان waxaan ku leeyahay maanta waxaan tusi doonaa greenhouse kaas looxa ah ee qiimaha jaban ku kacaya xogtiisa oo dhameystiran iyo qaabka loo sameeyo muuqaalkan oo dhameystiran la soco saaxiibayaal mashruucan waxaan ka fulinay magaalada Kalabeed oo 75 kilomitir ka xigta galbeed ee magaalada Hargeysa wadi ka arkay tangiga waan hadda halka la taagay halkaan oo talaga shaqeynaya greenhouse baa la dhisayaa oo wooden ah ama qori ah beertaas waxaad arki doontaan iyadoo greenhouse-keedu dhameystiran yahay haddii alla idmo insha allahu tacaala halkanina waxaanu qorsheynaynaa inaanu iyadana ka qodno qarbad saaxiibayaal ugu horeyn halkani waxaa lagu diyaarinayaa waa qoryihii qori walba waxaa loo goosanayaa cabiro loogu talagalay greenhouse-kan waxaa la qorsheynayaa inuu cabirkiisa noqdo 830 mitir oo dhererka ah iyo 8 mitir oo ballaca ah haddana waxaa la diyaarinayaa qoryihii in mid walbaaba loo jaro cabirkii loogu talagalay installation-kii waa socda markaa la xidhaya allah musta'aane halkan qalabkii baa yaala halkan nimankii injineerada iyo xirfadayaqaanka baa ka shaqeynaya imka waa barbilo markuu dhamaado insha Allah tacaala waan tusi doonaa wixii kharash ku kacay iyo barnaamijka sidii yahay xagga dambe insha Allah tacaala ay ka soo sheegi doonaa markaasi la socda duulaha saaxiibayaal waa maalinkii labaad waxa la taagayaa maanta qorigii baa la taagayaa wadiga arkaya qori walbaaba waxa lagu taagay goodkiisii hadda wali waxaan ku leeyahay isku markibin waxaan ku leeyahay waxa soo qoriyaba hadda la isku rakibayaa wadinka arkaya mumkin jaarinta waa kuwa saaran qoriyaha intaas oo ka imka xagga soo xigta waa la isku soo rakibay ma la isku soo xiray ilaa tabaradiisi wixii soo dhan baa loo dhameystiray waxaan ku leeyahay baasha xirfad iyo aqoon ayuu baahan tahay nin halkan isku garaacanaya waxaan ku leeyahay subaarkiisii waxaana la doonayaa in masaabirtu meelaha ka muuqanin si aan hadhow shabaka kaaga qabsanin waryaalahan maalinkii labaadna shaqadii waxaan ku leeyahay wataaba la soo gabagabeeyey hadda waxay maraysaa xilligii laga ruuxay waa inoo maalinka saddexaad salaamullaahi calaykum waa maalinkii saddexaad ee shaqada ADBStage oo dhameystiran tahay wadii ka arkaya skeleton-kii sare waa taagan yahay maantana waa la shubay haddii ilaahay badankeeda leeyahay shubkii waa socda intoolana waxaa arki doontaa insha allahu tacaala isagoo dhameystiran yahay gebigiisii uu dhameystiran yahay shabagiisii uu dhameystiran yahay waxaan ku leeyahay qoryahaasi laga habeeyey oo la hagaajiyey waxaase qoryo laga hagaajiyey markaa waka saaxiibayaal waa maalinkii saddexaad aad baad u salaamantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba maanta intaan wadada soo soconay baanu la kulanay beerihii oo si fiican loo qodanayo aaga magaalada Gabiley oo Kalabeed ka sokaysa waxaan ku leeyahay beerta waa ku sii leexanay cagaftaas oo beerta qodanaysa baan xogaa ka siira duubnay waxaan leenahay beeraha ha noqoto ama obifiil ha noqoto oo taa banaanka lagu qodayo ha noqoto ama greenhouse ninkii awooda ama loo xadhigto oo ha samaysto ama mid biraba ha samaysto nin walbaaba wixii uu awoodo ee tamartiisu tahay ha qoto halkaana laba cagaf baa maanta ku jira masha Allah tabarakallah hadda waxaan ku soconaa ilaa maalin saddexaadkeeni iyo halkeena shaqada war saaxiibayaal qaybtan waxaan ku jiray nimanka xariga baalka jiidaya shabaga markaa ma duubin laakiin sawiraan baan qaaday dhowrkaas sawir waan ka qaaday markii shabaga koonaha la geynayay deetana la soo saarayay oo tayada la soo bilaabay koonaha la soo bilaabay ما شاء الله وكابالك هذا اللي تشيل هذا هسعته كسر هالكانا هوي كاي لالي ميلها قبسانيسو اوكا ما شاء الله تبارك الله هسعته هوش shabagani saaxiibeel waxa la sameeyaa waa la jiidaa waxaan ku leeyahay waa shabag u kala baxa in xoog loo jiido si waxaan ku leeyahay meesha loo gaarsiiyo halkii loogu talagalay waa in xoog loo soo jiido deetana ciida loo huyo ciida lagu laabi doonaa afartan baa jiidaya laga jaro inta hore laga goynay imkan ku duubnaa wareeji nimankan waxay sameynayaan hadda waa albaabkii تاني وقت هلا يركض صاحب بدي ويركض لين ما له دلهم
صلوا تور كان عندي رادين سيبه إنكم محاوضة أحمد جامعه يا محاوضة waxaan إنجنيري waxa la isku xirayaa istobkaagii iyo beebki way istobkaagii min beebku maxaa dadku armi garan waayaan ba waxaas meel bala meeting soo tagaysa istobkaaga waa kii biyaha joojinayde waan gartay min beebkuna waa tuumbadii weyneed ee beerta galaysa marka waa kan imka dib gacanta ku hayo oo ka gacanta ku hayo injineerkii yaraaye arlo saraygu qaarto marka xaq saraygu halkaas lagu xareynaya caagan waa lingixi biyaha lingixi hadii kala weeyaan waa qubaysa ka geliyay marka sana biyaha u qabin halkaas bay tuumbada ka bixi doontaa kadibna waxay bartaa ka tageysaa tangiga ka tageysaa waxaan ku leeyahay greenhouse-kii waa kaas waa dhameystiran yahay waa ka greenhouse-kii xagga sare haddaynu ka eegno idinka arkaya